wafti balaaran hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland baashe maxamed faarax oo ay weelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa saaka soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ujeedada socdaalka waftiga uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ahaa sidii uu xoogaa ugu noqon lahaa colaadaha dhawaan ka soo cusboonaanay qaybo ka mid ah gobolka Sool afayeenka waftigan xildhibaan Siciid ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkooda ugu horeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka maayirka degmada Laascaanood taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka saraakiisha madaxda kale ee gobolka iyo degmada iyo dhammaan dadweynaha gobolka gaar ahaan degmada Laascaanood sida fiican ee ay noogu soo dhaweeyeen degmada haddaan taa ka gudbo wafdigan uu hogaaminayo gudoomiye baashe maxamed faarax gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland kuna yimi talada guud ahaan xubnaha wafdiga iyo tilmaanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland musabixi wafdigan waxay u socdaan hawl gaar ah oo muddo socon doonta oo ay si gaar ah uga qaban doonaan arrimaha amniga horumarinta arrimaha bulshada iyo dhammaan waxyaalaha dareenka leh ee ka taagan gobolka waxaana ugu horeyn doonta hawsha muhiimadda koowaad ee ay gobolka ka qaban doonaan hadda waxa weeye gurmadka loo gurmanayo ciidanka qaranka si loo ilaaliyo amniga guud ee qaranka iyo qarannimada iyo jamhuuriyadda xuduudaheeda mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa xubnaha gobolka iyo degmada ee nagu soo dhaweeyay wafdigani wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood 3 wasiir gudoomiyaha golaha wakiilada oo wafdiga gudoomiye u ah iyo 8 xildhibaan oo ka kala tirsan 4 golaha guurtida iyo 4 ah golaha wakiilada dhammaantayo muddo dheer ayaanu halkan ku sugnaan doonaa wixii hawl ah gobolka taala iyo degmadana waxaan ka qaban doonaa wixii iswaraysi iyo war dambe ahna maalmaha soo socday iyo goobaheeda ayaynu ku kulmi doonaa bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waftiga balaaran ee hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland baashe maxamed faarax ee ka mid yihiin xildhibaanada maxamed cabdi iyo Siciid maxamed cilmi waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Laascaanood saakin soo gaareen oo bishii 16 gudoomiye magaalada nabadgelyo wax dhiib ma jiraan xaaladdu waa iska fiican tahay waxa jiidaar ka maqashayna kulli waa iska wareysan doonaa hadii ay idmo marka waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba ku soo dhawaada magaalada Laascaanood alxamdulillahi rabbil caalamiin bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi hamdan kaseeran dayo barna fiihi ilaahay ma halis kale maanta ay tahay bishii May 2018 waxaan ku soonahay caasimada gobolka Sool Laascaanood xarunta madaxtooyada gobolka Sool waxaan soo gaaray waqti balaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland baashe maxamed faarax ay ka mid yihiin xildhibaan Cabdi Jaamac iyo gudoomiyaha waxaa hore iyaguna loogu joogay oo soo gaaray isla shalayto wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha iyo xildhibaan Axmed Maxamed iyo xildhibaan Cawil iyaguna waqtiga qayb ka ahaa midna gudoomiye gobolku waa rooban yahay 100% meel abaarna maanta ma jirto alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay mahadiyey waxa uu saak waagu noogu bariyay nabadgelyo wixii shalay dhacay oo dowladda haysa gaarna aan qaabo rami doona mooye laakiin saak waa nabadgelyo gobolku ku soo dhaw gobolka nabadgelyo ah maamulka gobolka iyo degmada ilaalinta amniga ku soo dhaweynaya wabillahi tawfiiq maan rahiim mukhtaar cabdi jaamac wararka warbaahinta Soomaali News TV Laascaanood